waxaan qaadanaynaa css grouping waxaa la dhahayo. So waxaan sameynayaa h1 oo kale si aan grouping u sameyno waa inaan wixii grouping ku sameynaa waa inaan sameysanaa. So waxaan leeyahay h1 this is tasty. Okay, kadib waxaa leeyahay refresh. Okay, waa kana uu soo baxay this is tasty and waxaan u qorayaa h2 or paragraph. kadibna waxaa leeyahay long long 5 okay 5 words oo kale camal. kadib waxaan leeyahay refresh. kadib waxaan leeyahay h2 waxaan leeyahay hello students. Okay, so marka waxaan u baahnaa marka hadda inaan style aan gareyno. tusaale waxaan doorto kale body waxaa la dhahaa dhammaan halaale inta ku jiro. So waxaa leeyahay marka body waxaa la dhahaa asiga inta ka bilow ilaa inta dhammaan u halaale iyo ku jiro. So markaan body aan dhaho waxaan leeyahay color waxaan leeyahay kale weight. Okay, tusaale colorka waxaan dhaho kale weight. sida u jeedin colorka wuxuu noqday red. waa maxay sababta? maxaa yeelay bodyga asiga waa inta ilaa inta. So colorkan macnaha wuxuu sameynayaa waxa la dhahaa inherit wuu dhexlooyaa colorkan oo haystaa. Okay, kan waa kana bodyga intuu ka furan intuu ka xiran yahay kutigoodna waxay ku dhex jiraan bodyga. So colorka wuxuu u imaanayaa kan marka waxa inherit la dhahaa jiro gadaal dambana waa ka sharxi doonaa haddii xoogaa fahmi leedahay. no problem, dhib male. laakiin muhiimada kan maahan casharkeena. waa muhiimadeena waa kan. tusaale waxaan rabaa h1 oo kale hore ayaan soo sharxay markii aad dooranaya. hadda waxaan rabaa h1. haddii aan rabo h1 waxaa isticmaalaya h1 maxaa yeele waxaa isticmaalayaa basic selector oo element selector. waxaan leeyahay color green oo kale. okay, waxaan dhahay color green. waa kaas h1 waxay noqotay green. waxaa kaloo rabaa h2 inaan green aan ka dhigo. maxaa sameynaa iyadana colorka camal aan siiyo inaan h2 iyadana colorka aan sameeyo. waxaan sameyn karaa qaabkan. okay, waxaa laga yaabaa inaan dhahday waxaa sameyn kartaa qaabkan kan soo koobiyeyso. okay, kadib inta keen kadib bastidhe kadib yes saas waa sameyn kartaa. balse waxaa jiro qaab kaloo ka fudud. waa maxay qaabkaas? waa qaabka casharkeenu ku saabsan yahay kaasoo ah grouping css. grouping macnaha waxa waaye waa laba style aan grouping ku sameynayna. waxaan ka dhexaysiinaynaa laba elementi. hadda waxaan leeyahay h2 iyo h1 colorkooda waxa noqdaano green. si aan grouping ugu sameeyo waxaan leeyahay comma. okay, waa kaasa. okay, hadday wixii inta ku sameynay waa iska dhaaf maxaa yeelay koodkaas waa soo gaabiyey oo maxaa yeelay waxaan sameeyay waxa la dhahay grouping. waxaan dhahay h1 iyo h2 colorkooda ha noqdaan green. haddii aan rabo inaan paragraphka aan ku daro maxaan sameynayaa sidoo kale iyadana waxaan leeyahay groupka ayaan ku darayaa. waa kana listiga ayaan badanaa waxaan leeyahay beta sigana waa kan h1 iyo h2 iyo paragraphkan colorkooda ha noqdaan green. okay, refresh and waa kaasa. haddii aan kan ka saaro groupka colorkeeda waxay kusoo noqonaysaa guduudka taasoo ugu imaanaya bodyga maxaa yeele bodyga ay ka dhexloosaa. kan muhiim ahan casharkeena waa kan ayaa casharkeena oo groupingka in laba style oo hal mar aa qortay aa u dhexaysiiso laba element sida kuwan oo kale h1 iyo h2 waxaan ka dhexaysiinaa halkan green anagoo isticmaalin waxaan dhahay grouping maxaa waxaan dhahay h1 iyo h2 colorkooda waxaa ka dhigtaa green. okay, muuqaalka intaas ugu eegaya video like saar channel subscribe saar mahadsan.